channelkani waa Lucky Boy channel maanta waxaa marti igu rag igu qaali nin fanaan aan taageero aan jeclahay kawada dambeena ya qaali igu ya meeshan joogo intaan wareysiga bilaaban waxaan xasuusinayaa like share subscribe and comment channelka wuu cusub yahay insha Allah waxyaalo badan ka يعني ogaan doonta waxyaalo badan rag badan oo igu qaali oo fanaaniin oo mid labaad oo majaajileystayaal badan yaa ay joogaan hal mar rabo inaan meeshan soo wada waxyaalo badan laakiin aniga caawa ay gaadeen maadaama aan muusigaygii waxay si kaliya ay qabateen waxba ma soo diyaarsanin laakiin maadaama channelka cusub iyo waxna ciyaarta kusoo yaaca wax badan insha Allah filada waxaa Lucky Boy waa ka helaysaa insha Allah fanaan igu qaali tahay magac ninka magaciisa hadaan ii baro horta waxaa la dhahaa Yusuf Guul waa nin maanta igu horeysa arko horta runta hadaan ii sheego maanta ninkan igu horeysa arko fanaan waa maqlay ana waxaan iska maleynaa kaftan iyo ciyaar qosol dhalinyaro ma ogtahay waa serious inaad tahay ma maleynin marka arkay ninkan maanta igu horeysa arkay oo arkay isa live qaadayo meel taagan wasla fanaaniinta qaar waxaa arkay isa waa يعني وحسوا ما فاهم كذا إذا هتيجي بدنا أنت أنا بدنا سيريس يعني أساس كله أنا تمر حاجة عن صار أسي وولي ما كفنان نوعا أو مرتاح كسير إيران مكون إيران ما يعيش دحين هرتوس كسودو ضدك إزبر وإن كل ضدك بدنا قاعد كود بيقرنا يعني قاعد كلامنا وحواي يا برندون إن شاء الله وحيلا بدنا نصورنا كورت كسود هذا كنال كان وحولا اسكلا ولكن Lucky Boy وحي يعني سو سocdana waxyaalo badan naga fisha yaan ku sii dheeran fanaankeena aan waxyaalo badan ka wareysanayna fanaan soo dhawo dadka baastiin dabcan sida magacaygu ay sheegay Lucky Boy waxa waaye Yusuf Guul waa naanays magaca oo saddexan waa Yusuf Ali Ahmed marka marlaad iyo mastaxad weyn ma celinaya maadaama igu sharaftay oo kuma santahay kusoo dhawo taarnoladkaaga iyo meesha ku soo baratay iyo wadankan inta joogtay bal waxay inoo tahay waa master Xasan magacay horta sida sheegay waa Yusuf Ali Ahmed Guul waa family name waa naanays oo magaca bahay wax ku dhashay gobolka Bari degmada Guudacad oo waqooyi bari ka magaalada Qardho hadda inkastoo magaaladii xaafad kamid ay noqotay halkaas aan dugsi hoose dhex ku qaatay dugsi sare magaalada Boosaaso kaga baxay kadibna jaamacad baan aaday wadanka Masar intii ka dambeysana New Zealand baan ugu sii baxay Australia kadibna halkan aan gormaad fanka ku soo beertay waqtiga wallahi xilligaasan exactly ku soo beeray kuma oran karo laakiin ilaa 10 sano u dambeysay waan heesay inkastoo aan u badnay dadka maartay fiidiyoda officialka oo duuduubo oo maartay meelahaas waxay waa iska live iyo aroosay xirfaday isaga badan yihiin laakiin intaas buu ku jiray heestii kugu horeysay waxay ma nooga taaban kartaa heestii ugu horeysay horta masrax ka qaadan anigu ma aan lahayn runtii fanaan aad taageero waa salaamaya halkan ka salaamaya Cabdi Manaad Arko la yiraahdaa heestan magaceeda waxa la yiraahdaa quruxdan nooceeda waan magaciya laga helayaa Soomaali aad iyo aad marka fanaankaas aad musalbaad baan u taageeraa wada salaamina anaga wada taageerna wixii su'aal ay wadiinayaan soo dhaweynayaan kabar marka waqtiyada fasaxa leedahay maxaa jeceshahay maxaad yani waqtigaaga inkastoo fanaaniinta badana marar badan tagaan xaflado waxyaalo badan adiga waqtigaaga kooban familkaaga intaadan ahayn maxaa jeceshahay wallahi waxyaabo badan baan horta xilliga free time haysto waxaan isku maaweeliyaa inta badan horta waxaan jecelahay inaan sports exercise waa ka muuqataa ama ciyaaraan daawada ama waan ciyaaraa ama maartay ama asxaabteeda kale oo ama familkii marka laga yimaado waqti in waqti la qabto jecelahay hadda ku soo laabto waxaa dhahday sportska jecelahay teamka taageerta ma noo sheegi kartaa waxaan taageeraa Liverpool ha isku tiimaana aniga horta reer Manchester ahay ma ka ma jeclaan to be honest meeshan waa laga wareegay marka ka dhiganaa insha Allah ma jirtaa cid fanka mise fanaani kuwa yani taageertay oo dhibka imaada mise wax ma jiraa
walaa intaa ku jiray wax caqabada oo maaragtay aad u weyn oo aan sheegi karo hadda oo iga horstaagay fanka ma jirto runtii waxyaaba yar oo iska jiraan oo laakiin wax dhibaweyn oo hadda aan sheegi karaa ma jiraan. heestii kugu horeysay bal waxyar inooga taabo inkastoo aad dhahday magaceeda aan ka helnaybo. heesta anigu ma aan lahayn runtii laakiin waa heestii igu horreysay oo aan maaragtay meel dee kumana aan boqolaal qof ay daawanayaan aan ka qaado oo bal waxyar hal iyo laba. marka heestaas waxaa la oran jiray quruxda nooceeda wacan sidaan hore u sheegay. marka heesta waxay ahayd quruxda nooceeda wacan nasiib adiga u helo waxaad naxariisu tahay naruuroy aragtidee waaw naqaan xidigoosaniyo nimxaa taha eebahay nusqan ka ilaaliyo naftaydu ku nuursatay. codkaaga ka waran gacadkiisa. maasha allah anigoo kuu sheegay mar hore maanta ugu horeysa arkabo waxaa dhahay wow. marka fanan kusoo mar kale kusoo dhawow. aad iyo aad brother waan dhawahay maasha allah. channelkan waxaa ka leedahay channelkan wuu cusuban yahay. asxaabta waxaan leeyahay waxyaalo badan laga sheego waxyaalo badan subscribe comment everything u dhamaystira dee gacmood ma xanuunayaan masagta taabta. fanaan aan kusoo laabto ma jira fanaan kaa horeeyay aad ku dayato mise dadka fanaanin kaa horeeyay way jiraan fanaanin badan. wallahi way jiraan anigu fanaaninta horta soomaalida dhan waan jeclahay fankooda oo loo daawadaa runtii dad khaas waa jiraan. laakiin fanaaninan si gaara maaragtay aan u dhageysto ilaa iminkana way jiraan inkastoo aan dadkii hore aan u badnahay oo fanaanintii hore maaragtay sida tubeec oo kale tahliil oo kale cigaal oo kale موميان فنانين هore aan u badnahay laakiin kuwa xataa yarar iyo hadda kuwa maaragtay heesa waan dhageystaa runtii aad baan intooda badan isugu xiranahay. heesahaadina waan filaynaa inaan mardhow maqli doono waa maqlaysiin fanaanka haddaa kusoo laabto inkastoo caawa la igaaday dee aanan muusigayga iyo adduunkayga aanan ma ka socdaan anaga maanta si kedisaa ku imaanay kadisaa kugu helay maadaama ani aad tahay surprise markaa magaalada kugu arkay waya waa farxay anoo le mar inaan kusoo diraa rabe invitation aan kugu casuumay channelkan anoo jeclaay markaa magaalada ku arka waxaa isdhahay bal waa heshee maanta qabad ninkiisa fanaanka fanaan aan kusoo laabtadana ma jiraa gabdha heesa aa la qaaday mise way jiraan brother way jiraan hadda dee heesa way jiraan kuwa aan showyo wada qabanay waxaa kamid ah nastaxinda kamid ah waxaa kamid ah Nadol hadda xafladii u dambeysay oo Manchester ee kooda luliyo oo laashay idana asoo ku jirnaa waa joogteen oo goobjoog waa ahaydeen xawkiin salaamina way jiraan kuwa hadda soo wadno oo Tarantaaliya oo mar rabo inaan ka hor dhaco laakiin insha Allah aan soo socdaan nala socda dhawaan insha Allah soo socdaan way jiraan marka fanaan aan kusoo noqdo waxaa dhahday heeso badan aa qaaday heestaada adiga aad leedahay kugu horeysay ma xasuustaa? aad iyo aad heesta anaaba isku dayay heesta igu horeysay aniga isku dayay heesta miraheeda aniga lahaa laxankeedana waxaa leeyahay cabdirasaaq ismaal ruqaas oo saaxiibkaya mar waa saxaafi marna waa abwaan aad baan u salaamaya marka heestaasi waxaa la oran jiray xamda la yirahdaa heestaas xamda miraheeda aniga leh marka heestaas waxa way ka maqashin karayaan waxay nala tahay codkaagaaba leegsan heestaas wuxuu dhacaysay dayaxu xayaabiyo aan caad ku xeernayn ama xilligu iyo da-ay waran tahay xareetii xooluhu irqanaya xulashadii kayaankay xamday iga dhigantay xamdaa macaniga adhigantay markaas u dhacaysa hadda waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadii maya janaalkana waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanay caawa inaa waqti la qaato oo magaalada Bolton aan la joogo insha Allah dee asxaabtana waxaan leenahay subscribe-ka like-ta wixii dambena maarta gadaal ka soo asxaabta kulli waa salaamantiin intay daawatay videogan dhameysatay oo wada salaamantiin haylowina like subscribe share and comment fannaankana waa maqlayseen